السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. داوضي القضبة أدوار كنا هبين وكم مغلي دونتانا وحاكم إذا جمهد الرقاقة حرينتا عن فرط إلو يقانو ديمقراطيين تا أيا لم يدوبك وحدة TPLF sidoo kale waxa la soo sheegayaa inuu saakay sidoo kale waxa la soo sheegayaa inuu ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed uu saaka safar degdeg ah ku gaaray deegaanka Canfarta. sidoo kale jamhadda xoreynta Oromiya ayaa waxa la sheegay inay ku hanjabtay in ay goyn doonto wadada laamiga isku xidha dalka Kenya iyo magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. qodobadaas oo faahfaahsan daawadayaal ku soo dhawaada. taariikhdu waxay ku beegan tahay 17 bisha 8 2021 wararkaas oo faahfaahsan aanu guda galno. jamhadda dhaqdhaqaaqa dimuqraadiga xoreynta Canfarta ayaa waxa ay sheegtay inay heshiid laba geesood la gaadhay jamhadda dimuqraadiyiinta xoreynta Tigray ee loo magacaabo TPLF. heshiiskan u dhaxeeya labada jamhadood ayaa waxa la sheegayaa inuu wax weyn ka bedeli doono dhaqdhaqaaqa ay kooxda TPLF ka wado deegaanka Canfarta. deegaanka Canfarta waxa ka socda dagaal xooggan oo u dhaxeeya huwanta ay hogaaminayso dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada la safan dawladda federaalka iyo kooxda TPLF oo la garanaynin cid ka garab dagaalamaysa balse maalin kasta dagaalka guula ka sheeganaysa. kooxda TPLF oo la sheegay bariyahan dambe inay jamhado badan ku soo biireen ayaa waxa la sheegayaa inay go'doon gelisay magaalooyin badan oo ka tirsan gobolka Canfarta. gobolka Canfarta jamhadan maanta ku dhawaaqday inay la midowday TPLF ayaa waxa la sheegayaa inay saameyn badan oo xagga siyaasadda ku leedahay gobolka Canfarta. waxaa ka sii horeeyay kooxda TPLF ku biiray generaalkii labaad ee ciidanka liyu booliska Canfarta oo sheegay inuu gobolka Canfarta ka xoreyn doono waxa uu ugu yeedhay tabadhilifka Dr. Abiy Ahmed. kooxda TPLF ayaa ilaa waqtigii dagaalkii ay dawladda federaalka ku qaaday iyo waqtigii dambe soo noqdeen ay deegaankooda ku soo laabteenba waxa la sheegay inay xasuuq iyo gumaadba ay u geysteen ciidamada qaranka ay ka geysteen labada maamul waa Canfarta iyo Axmaarada. sidoo kale waxa la soo sheegayaa kooxda TPLF inay hub casri ah iyo taangiyaba ka furatay ciidamada federaalka oo ciidamada federaalku laga shakisan yahay dhaxdooda inay wada shaqeyn la leeyihiin kooxda TPLF. maxaa yeelay ciidamada TPLF maalin kasta hub casri ah ay qabsadaan iyo taangiyo aan la garanaynin cidda sirta ciidanka u gudbisay maalinba maalinka ka dambaysa ciidanka qaybta ugu awoodda badan hubkeeda ay gacanta ku dhigaan ilaa heer ay gaadhay inay ciidamo isku dhafa oo ka socda maamul goboleedyada dalka Itoobiya dagaalka jiida hore la geeyo oo ciidanka federaalkana la dhaho bal gadaal mara oo dagaalka inagu qaybtiina xagga siyaasadda leh ka qaata. kooxda TPLF oo dalka Itoobiya looga yaqaan kooxda argagixisada xasuuqa shacabka Itoobiya ayaa bariyahan dambe awoodo badan ku sii yeelanaysa gudaha Itoobiya ilaa ay dawladda federaalka aan saacadan la hubin meesha ay ku dambeyn doonto jaani cilmi dhigi doonto. sidoo kale waxa la soo sheegayaa jamhadda xoreynta Oromiya in ay ku hanjabayso wadada laamiga ah ee isku xidha dalka Kenya iyo dalka Itoobiya in ay ku hanjabeen inay goyn doonaan hadayna shacabka Oromiya laga qaadin cunaqabataynta ay soo rogtay dawladda federaalka ee dalka Itoobiya. kooxdan oo lagu sheegay koox awood badan inay tahay ayaa waxay ka howlgashaa gobolka Oromiya waana koox ka go'day jamhaddii hore ee Oromia Liberation Front ee ka go'day jamhaddii hore ee Oromia Liberation Front ee heshiiska la qaadatay dawladdii hore ee dawladda Abiy Ahmed ay kooxdani ka go'day. ninka lagu magacaabo General Gojache ee hogaaminaya kooxdan ayaa waxa la sheegay inuu usbuucii hore la soo dhaafay uu bogiisa ku qoray inuu leeshiyo TPLF oo inuu u midoobeen inay dawladdan Abiy meesha dhaafiyaan dawlad cadaalad oo dimuqraadi ah ee Itoobiya u soo dhisaan. sidoo kale waxa la soo sheegayaa dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya
inay howlgallo ka wadaan magaalada Jigjiga oo lagu qabanayo siyaasiyiinta ka fikra duwan maamulka talada haya. sidoo kale waxaa la soo sheegay in siyaasiyiin caan ah deegaanka Soomaalida oo xilal muhiim ah ka soo qabtay ay ku xidheen magaalada Jigjiga oo dawladdu ku eedeysay inay wadeen qalalaase iyo kicin shacab oo looga soo horjeedo maamulka talada haya. daawadayaal waxaan idin leenahay tan iyo kulanti dambe wacan. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.